السلام عليكم kusoo dhawow daawaday barnaamijkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa shantii saynisyahan ee ugu waaweyneed culimadii islaamka ee qarniyadii dhexe anagoo kusoo koobi doona culimadaas iyo waxa ay kusoo kordhiyeen caalamka maanta. محمد ابن موسى القوارزمي wuxuu dhashay sanadii 780 miilaadi wuxuuna soo saaray tirada indiyaanka kaasoo lagu turjumay laatiin. wuxuu dib u eegis ku sameeyey hormariyana Ptolemy Geography. wuxuu qoray qaybo ka mid ah astrology iyo astronomy. ugu dambeyntii wuxuu geeriyooday 850 miilaadi. Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali oo ku magac dheeraa ibn Zina wuxuu dhashay 980 miilaadi. wuxuu ka shaqeeyay ama sameeyay 450 mashruuc. wuxuuna qoray buug lagu magacaabo The Book of Healing oo micnaheedu tahay buugga bogsashada kaasoo noqday haga caafimaad. wuxuu qarnigii 16aad soo bandhigay cilmiga astronomiga, xisaabta, fiisigiska iyo juqraafiga. ugu dambeyntii wuxuu dhintay 1037 wuxuuna ku dhintay Humadaan. Abu Musa Jabir ibn Hayyan wuxuu dhashay sanadii 721 miilaadi. wuxuuna soo saaray qaybo ka mid ah chemistry-ga, astrology-ga, philosophy, medicine, pharmacy iyo physics. ugu dambeyntii wuxuu geeriyooday 813 miilaadi wuxuuna ku geeriyooday Kuufa, Ciraaq. Al-Jazari wuxuu dhashay 1136 wuxuuna soo saaray qaybo ka mid ah artiska, mathematica iyo mechanical engineering-ka. wuxuuna soo saaray buug lagu magacaabo Ingenious Mechanical Device. wuxuuna dhintay isla sanadaas 1106 miilaadi. Ahmed ibn Muhammad ibn Kathir wuxuu ahaa saynisyahan ku dhashay qarnigii 19aad Baghdad. wuxuu abaabulay cabirida dhexroorta dhulka ama loo yaqaano diameter-ka asigoo cabiraya fogaanta u dhaxaysa labada dhinac ama loo yaqaano meridian arc length. waxaan filayaa inaad wax badan ka ogaatay culimadii islaamka ee qarniyadii dhexe. wassalaamu calaykum.